waxaan ku lahaa bulsho markay ka raagto dhaqankeeda iyo ciideeda iyo calankeeda iyo dadkeeda iyo ehelkeeda markay ka raagto meel kale ku raagto waxyaalaha isbedela waxyaalahaas wax wanaagsan iyo wax xun labadaba leh haddii uusan la socon karin galaaskiisa taas waxay keenaysaa wax la yidhaahaa extra support caawinaad معناها زيادة عنق إن لصيه because وحواي لما صعون كارو والدك مركوسن بليف جريسنين شانس كان وأصدق بالنيجاتيف كويه علميا ومقلع عنق سو مركو سكسس وسمينا مركو والدك إنا علميا سبات جريان دريم كي وحواي إنا نقضي إمام في المسجد الحرام هذا سعد هذا سنة كان إن شاء الله إمامك عدك أنت جنان وحجاجك يدك عمره ما عندك إنه فيزك وما ده أنت تجي إن شاء الله That's my dream ها I have to study very hard إنا أدنا إنا واحد برتواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك السوداني ذات كجوكتان با هل كان يوا تي في يونيفرسال حركتي سمجالة لندن ومر لبعض برنامج كريمة بالشدة وأنا دائما كسوق هذا لو حيرها نسلنا هاي بالشدة وحسينيسا برنامج كان يا وحى ويا مدحي سجوني ولا محيي لي وحى وتابنا يا قف كالسوق الصومالية برنامج كان يا نوح نوتر قالنا إن نكفير إنه رولك هو يدو أي نرش كعيارته إن هو يدو الصومالية ده يا وحى تهاي مد أيده إن هو على فلبرت مجتمعه أما هو يو البابا إن لبعتن كيسنا لصودا فينا هو يدو الصومالية دبتوين فربنا أي سوق جاري مركب وحنا دونينا إن شاء الله تعالى بل وناجي ذي شرفت ذي عز ذي إن كان موضوع عن كفير إنه waxaa caawa marti barnaamijkan igu ah maxamed jiini oo aad si fiican u taqaanaan oo asagu Columbus Ohio degan oo daa'iman asagu khayrka iyo wanaagga ka qayb qaata lagjarro fara badan adduunka meelo kala duwan ka bixiyay aad baan waqtigiisa uga mahadcelinaya maxamed kusoo dhawo barnaamijka arrimaha bulshada waad mahadsantahay walaal haddii aanu ku bilowno hooyadu waa يعني لايف لاين كي أمضوا دون ويان قفل بوا هويا على الشيء ودنيا نجوجا هويا الصومالية أنا جنا وضع الشيء وسيقوني الله تعبني سا هويا يمكن مركب الغريبة بل دارين كهويا ذا إيه المهذا بل وإحنا قطع بفضل بسم الله الرحمن الرحيم هرتواد mahadsantahay mar walba London imaado inaan isla kulanno waa sharaf iyo waxaan Ilaahay ugu mahadnaqo Abdi Xafiid oo hooyadu waa saldhigga farxadda nolosha aadmiga hadiyad Ilaahay uu basharka siiyo waxa ugu qaalisan waa nafta qofka bani aadamka ah maxaa yeelay qofku hadii uu nool yahay uu shaqaysan karaa hadii uu nool yahay uu wax baran karaa hadii uu nool yahay uu reer yeelan karaa xabagta marka isku haysa noloshaas waxaan aaminsanahay inay tahay hooyada hadii aad fiiriso nabi Muuse alayhi salaam dhabka hooyadiis ay la soo martay heer ay gaartay waqtiga ay dhalaysa waxa markaa ka jiray boqortooyadii Fircawn uu xukumayay sharci ah in wiil kasta oo u dhashay reer bani Israa'iil la dilo laba cali aysan isweydiin kibir iyo ma aragtay isla weyne ayaan u geysay Fircawn yariyadii uu ku riyoodo in boqortooyadiisa u burburinayo wiilka yimid qabiilkaas إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم هير وحي جارسيسي هو يذا نبي موسى أي ويل كذا كوقرسه ميسسكو هوستو تيرر هوستو داقد دجاس كد حتى أي إلوه إني ناس نوجس مرارك قاركد وقرن كرتا هويو المرة شيء أو المه ولي يعني دور بريء وجره وحكو قص بكرة إني إلوه إني ناس نوجسه مركز إلهي الله الله يا أوليه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هو يدي موسى وحن كنري هو وأن أقنعه إن أتكول وليسو إن أنقاق لقاقاته وأن أقنعه إن أتكول وليسو إن أسكر إنت اعتماده لبكي آد ماركتي ويل كان كسو مرتي أدو حسوسته إن معلن على لقاوته لدله وأن أقنعه لكن سيكستو إتعب إنك كحفدان إنه ويل كاقا ناس نوجي عانها أقل لأنتيس ويل كاقا من علان كرم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه شاكذي كما أيسن دقن قلبك هو يد موسى محايا لا درانك هو يد ووح آد وحق بدن ووح حتى وح كستو لغو شاقو هدي آذن وحي يعني أنا أذيك الساعة أن أفكرنه سكدوان أيه هو يد أفكرته
arrinta halkaa waa ku ekaan weysay. markaasaa mar labaad fa idaa khifta calayhi fa alqiihi fi lyami, waxaa mar labaad loo dejiyay kaarto kale oo ah haddii cabsidii weli aysan ka degin qalbigaaga ood u baqaysa wiilkaaga, xaqna waad u leedahay inaad u baqdo, waxaad samaysaa wiilkaaga waxaad ku ridaa sanduuq yar, markaas webiga niilka ee dalka Masar ku yaala ku sii daa. waxaan mar labaad rabaa inaad ka fakarto waxa ay ku qaadato hooyo cunug ay dhashay dhowr beri ka hor inay sanduuqanta ku rido biyo iyo xaas iyo wax walba ay ku jiraan ay ku rido. markii ay saa samaysay qalbiga ayuu ilaahay rabay inuu u xasiliyo oo u qaboojiyo. maxaa yeelay bini aadamku marka uu isugu baahi badan yahay waa marka uu dhibka ku jira, ma aha markii uu soo caafimaaday oo dhibka u soo maray markaas aad ku tiraahdo wallahi hadda waagii ma aragtay waa dhib aad soo marta, ma aha. feeri waxaa lagu yidhi inaa raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin. waxaa ka horeysay walaa takhaafi, ha cabsanin hooyadii muusaay, walaa taxzanii, ha murugoonin hooyadii muusaay, inaa raaduuhu ilayki, inaga ku soo celin doona wiilkaaga, wajaaciluuhu min almursaliina, maadaama dhibka iyo imtixaanka aan ku marinaynan uu yahay mid aada u adag, ma soo celinayna oo keliya waxaan ka dhigaynaa rususha ilaahay u doortay mid ka mid a. cabdixafiidow hooyada markaan iraadana mid bani aadam oo kaliya kama wado, xataa hooyada bisada ah, xataa hooyada eyga ah. dhalmadu sideedaba ama ey ha noqdo waxa dhalaya ama qof bani aadam ha noqdo, xanuun baa laga wada maraa. ma uu jiro culumta biologyga markii la fiiriyo qaybaha loo kala bixiyo sanku neeflaha adduunka jooga, ma uu jiro ilaahu jiirka u yar quraanjada u yar, ma uu jiro dhalmo xanuun la-aan iyo ilin la-aan iyo oohin la-aan iyo dhabarjab la-aan timaada. waxaa taas kasii muhiimsan in hooyadu ay u bareertay xanuunkaas oo ay ka horeyso 9 bilood oo qof kale ay iyadu dooratay inay caloosha ku qaado. adiga walaalkaa kula dhashay ma ogola 1 daqiiqo inaad dhabarkiisa saarnaato, anna walaalkay ma ogola. laakiinse hooyadu waa qofka keliya bani aadamka ah, qofka keliya ee bani aadamka ah ee saxiixday in qof kale ay xamisho 9 bilood iyadoona og 9 bilood kadib waxa dambeeya inaysan farxad iyo reyn iyo qoobka ciyaar aysan ahayn, ay ka dambeyso fatahaad dhiig, xanuun, maaragtay fool, intaas oo dhan. markii la isku keeno dareemadaas, markii la isku keeno doorashadaas, markii la isku qabto hooyadu inay tahay shakhsiga kaliya ee bani aadamka ka jeclaan karta qof kale in ka badan inta ay nafteeda jeceshahay, ayaa waxayna tusaysaa hooyadu inay tahay saldhigga farxadda qofka bani aadamka ah. maadaama aada saa uga sheekaysay dareenkii iyo hooyadii iyo nabiyullaahi muuse calayhi salaam hooyadiis, ummadahan hadda aan noolnahay ama adduunkan hadda aan ku noolnahay, hooyadu mar walbaba waxay leedahay carshi iyo martabad cid kale la gaarsiinin iyo sharaf gooni ah. annaga dhaqankeena soomaaliguna wuuba kasii duwan yahay, dee hooyo waa hooyo. waxaan jeclaan lahaa inaan isla fiirino ama aada wax ka tiraahdid adduunkan hadda aan ku noolnahay martabada hooyadu ay ku leedahay, yacni mansilka ay ku leedahay hooyadu, taas dareenka hooyada ilmaha ka dhexeeya mahana mujtamacu iyo societygu siday u qadariyaan hooyada, maxaad ka leedahay? waa arin bani aadam oo dhan ka dhexaysa, dhaqanka galbeed iyo dhaqanka bari iyo dhaqanka dhexe iyo midka saka iyo midka shishe, intuba hooyada qadarin weyn ayaa ay siiyaan. xataa dadka aan muslimiinta ahayn, gaal iyo muslimba, laanna waxaa jira waxyaalo bani aadam ahaan aan u wada qaybsano. mathalan biyahan sida loo cabo ma ay jirto si muslimiintu gaar ah u cabaan, gaaladuna gaar ah u cabto, madow iyo cadaan laba si oo kala duwan uma kala cabaan. waxyaalaha farakutiriska ah ee bani aadamka oo dhammi uu ka sameyn yahay waxaa ka mid ah xushmadda iyo naxariista iyo qadarinta iyo qiimeynta hooyada loo hayo. ama iskoolaadka galbeedkan aan ku dhiganay haddii aad fiirisid, ama duruustii iyo bay-adii aan kusoo kornay, guryo muslimiin aan ka nimid, guryo soomaaliyan khaasatan ka nimid, ama dalkanagii hooyo iyo dadka soomaaliyed meel kasta ay joogaan, hooyadu waxaa weeye wax la isla wada gartay in la-aanteed iftiinkii gurigaasi uu damay. naxariistaana hooyadu ay aasaas u tahay.
naxariistuna waxa ay qurxisaa qofka bani aadamka ah. naxariista iyo khiyaarnimada xadiid baa jiray caaisha ayaan jeclahay ridwaanullaahi calayha inay warisay oo ay lahayd khiyaarnimada iyo naxariistu qof kama dhaqmo ilaa qofkay qurxisaa mooyaane, qofna kama tago ilaa qofkii bay fool xumaysaa. halka laga barto marka waxaa weeye hooyada weeye. hooyadu tarbiyadda ilmaha ayay aasaas u tahay, ama galbeed ha joogto ama bari ha joogto ama muslim ha noqoto ama gaal ha noqoto. ibn khalduun buuggiisa waxa uu ku leeyahay qayb ka mid ah, wuxuu yiri ilmaha yaryarka maalan, yani muhiimadda hooyadu ay leedahay kuu sheegay. wuxuu yiri ilmaha yaryarka ah khiyaanada iyo beenta iyo nifaaqa kow marka ay bartaan waxaa weeye marka iyagoo yar lagu bilaabo in la garaaco. maxaa yeelay cunugaasi wuxuu isku dayay inuu sameeyo oo uu yidhaahdo wax walba oo been ah si aan loo garaacin. maxaa le bani aadamku ma jecla in xanuun la gaarsiiyo. marka wuxuu ku leeyahay yani beenta iyo khiyaanada iyo nifaaqa iyo isdaba markaba waxay ka bilaabataaba cunug 2 jir iyo 3 jir iyo 4 jir iyo 5 jir markaad maalin basuun ula soo baxdo. markii cunuga yani aad garaacdo, markii cunuga uu og yahay 2 kalmood hadaad weydaarsataan, dharbaaxada iyo qalinka iyo mastaradu ay ka horeyso. waxaasoo dhan marka waxaa weeye waxa isku haya oo iftiin u ah oo ilays u ah, oo haddii aad fiirisid yani maalan galbeedkan oo kale haddaad aragtid gabar iyo wiil isfuray oo ilmo isku dhalay, 99% waxay u badan tahay maxkamaddu inay siiso ilmaha hooyada inay hayso. caalamka islaamkana saasay u badan tahay. waxyaala la isla qaybsadaa jira marka hooyadu marka waxaa weeye waxyaala maanta haddii halkan inta aan fariisto aan ka bixiyo hadal iyo khudbad, gaal iyo muslim bay wada fadhiyaan, labaduba ay dareemi karaan waxaan ka hadlaya. waa ina dhacda jaamacad ku taala gobolka la yiraahdo Maine ee dalka Mareykanka oo deganahay ayaa sanadkii la soo dhaafay aan ku lahaa khudbad ciwaankeedu ahaa tan oo kale muhiimadda yani jacaylka hooyada, the love of a mother. gaal iyo muslim waa buuxeen, yani gaala madow cadaan wax walba unbaa yimid. intii dadkii muslimiinta igu yiraahdeen unbaa igu yiraahdeen intii yani nin waliba walla hooyaday baa nool, maalmahan uma aanan baari yeelin, maalmahan uma aanan khidmaynin, hooyaday waa dhimatay maxaan u sameeyaa, hooyaday waa fog tahay. yani dareen ayaad igelisay ah inaan hadda waco oon u sheego sida aan ugu xiisay, dhibka ay isoo martay inaan iloobin, meel sare inay nolosheeda ka joogto. marka dhaqamada iyo xadaaradaha adduunka oo dhan oo la isku daray, hooyadu waa ay ka wada sarreysaa. waliba aniga shakhsiyan cabdixafiid haddii aan kuu sheego, hooyaday sanku neefle adduunkan jooga waa qofkaan ugu jeclahay. insha Allah. yacni mararka qaarkood waxaan idhaahdaa ilaahay waxaan ka baryaa inuu ibaro 2 shay jacaylkooda si aan yacni naftaydaba kaga badiyo, jacaylka ilaahay iyo jacaylka hooyaday. waxaa weeye yacni noloshayda maanta si aan u ekahay iyo waxaan ku hadlayo iyo meeshaan taaganahay, meesha booska darajada rabtaba ha joogta waxaa mas-uulka ah waalidkay iyo qaraabada iyo dadka isoo wadi karaya, laakiinse waxaa horseed u ah hooyaday. qof walbana asaaska weeye. qof walbaana arintaas ila qabaa oo yani aniga keligay ma aha wax hooyaday ay dadaal gooniya ii samaysay. adiga laftarkaaga yani markii aad dhalanayso saankuma aada dhalan, qof baa kusoo jafjafay, qof baa boorka kaa soo dhaqay, qof baa kuu soo labisay, qof baa kusoo naasnuujiyey, qof baa habeenkii dadka kale oo dhan markii dhawaaqaaga uu dhibayay habeenkii oo dhan dhakoolnaa oo soo jeeday. qof baa wixii iyada ay rabtay adiga kuu quurtay, qof baa quruxdii iyada isku arki lahayd adiga kaa aragtay, maxaa yeelay muraayad ayaad isku tihiin. dareenkaas iyo naxariistaas oo dhammina waxaa laga helaa hooyada. ugu dambeyntiina cabdixafiidow nin caalim ahaa yiri qarnigii 4aad wuxuu yiri taabasho qofka bini aadamka uu dareemo teeda ugu macaan oo ugu qiimaha iyo qaayaha badan oo ugu naxariista badan waxaa weeye hooyo iyo cunug ay dhashay gabar iyo wiil waxay ahaadaanba oo jirkeeda iyo jirka cunuga wiilka ama gabadha oo dhar aysan u dhaxayn marka ay istaabtaan dabka halkaas ka kaca ayaa weeyo yiri
dareenka iyo taabasho qof bani aadam uu dareemi karo tiis ugu macaan ugu naxariista badan. maasha allah. waxaan soo xasuusay intaan mawduuc khudba bointi kala taabano muhiim jiddan hadda wadankan oo kale markii hooyadu ilmaha sax looga soo qabtaba waxay yidhaahdaan skin to skin contact, markiiba ilmaha hooyada laabtaa loo saaraa. islaan mid wife aan weydiiyey waayo intaan ilmaha qof kale loo dhiibin saasa u yeeshaan, waxay tiri waxa u horeeyo ilmahaas uu dareemo dunida markuu usoo baxo waa inuu hooyadii taabtaa. taabashadaas ayaa waxay keenaysaa bay tiri connection gooni ah oon luqadda lagu tafsiiri karin oo hooyada ilmaha ka dhexeeya intay nool yihiin. marka yacni aad bani ola yaabay yacni ilmaha intaa la eg inuu dareemayo taabashada hooyadiis intuusan qof kala taabanin. qofka saa oranaya xataa qof muslina ma ahan. marka waxaan kusoo xasuustay hadalkaagaas. hooyadu waa tan beerta wanaagsan barbaarisa, ilmaha akhlaaqda ka dhista, sida adigu sheegtay hooyada qof nool soo saarta. xagga barbaarinta ama toosinta ku toosinta tubta toosan ee ilaahay subxaana watacaala dariiqiisa ama qof wanaagsan ahaanta hooyadu qeyb weyn bay ka qaadataa. maxaad oran kartaa hooyada Soomaaliyeed kaga duwan tahay hooyooyinka kale dunida jooga? hooyada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in la-aanteed ama gabadha Soomaaliyeed ba aan dhaho ama hooyaha noqoto ama aysan noqonin, gabadha Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay la-aanteed Soomaali inay 20 sano ka hor burburi lahayd. buugagta taariikhda markaan akhrino ama quraankaba quruumaan akhrinaa wada baaba'ay oo hal qof uusan ka haranin. markii aan booqano dalal ka mida qaaradan Yurub ama bariga dhexe ama Afrika, waxaan booqanaa oon aragnaa qasriyo waa jiri jiray. waqooyiga America haddaad tagtid oo Mexico iyo arigaas iyo Peru iyo maaragta aad tagtid waxaad arkaysaa quruumo jiri jira wada baaba'ay. waxaan aaminsanahay shakhsiyan gabadha Soomaaliyeed ama hooyada Soomaaliyeed haddii aysan ciyaarin doorka ay ciyaari lahayd 20 sano ama 22 sano ee lasoo dhaafay, in waa hore taariikhda quruumahaas burburay oo kale aan geli lahayn. maxaan saa u leeyahay? waaba waxaa jiri jirtay nin ka uusan wiil u dhalan lagu fooriyo oo la caabeeyo oo la caayo. laakiin adduunku waa isbedele. zamankan waxaa la yiraahdaa ninkii aan gabar u dhalan ayaa gablamay. Soomaaliya waa tan tagay 2 bilood ka hor aniga. qofka ama qaadka la fadhiyo banaanka suuqa ama yaanyada gadaysa ama geedka hoostiisa shaaha ku karinaysa ama ordaysa ama cunugii dugsiga ka soo baxay gacanta haysa ama xaabo madaxa ku sida ay soo gado 100% maaha 99%. 100% waxay ahayn dumar iyo gabdhaha anaga iyo hooyooyinka anaga Soomaaliyeed. waxaan is weydiiyaa dumarka kale ee adduunka haddii ay soo food saari lahayd dhib ka soo food saartay gabadha Soomaaliyeed ama hooyada Soomaaliyeed, talow ma ka soo bixi kari lahaayeen booska ay gabadha Soomaaliyeed ka soo baxday? haya may ma dhihi karo. laakiin anigu waxaan shakhsiyan isku maaweeliyaa dhabar adayga iyo yacni hufnaanta hooyada Soomaaliyeed ay ina tusisay 20 sano oo la soo dhaafay. adduunka wax u dhigmay inuusan jirin. inagu rag daanahay waad garanaysaa shaqooyin fara badan aan ka xishoonaa. ninka Soomaaliga oo jooga maanta Soomaaliya araf way ku adag tahay inuu meel yaanyo la fariisto, way ku adag tahay inuu geed hoostiisa shaa la fariisto ama xataa Nairobi. laakiin hooyada waxaa weeye maxaa dareenka jacayl ee ay u qabta reerkeeda iyo ilmaheeda maadaama uu yahay mid aan la gaari karin, aabana uusan gaari karin, adeerna uusan gaari karin, awowana uusan gaari karin, waxa aysan dhib u arkin oo cayb aysan u arkin geed hoostiisa inay inta fariisato 4 yaanyo agada ilaa ma cunugeeda caawa uu helayo koob yar oo caano ah oo cabo. bal fiiri dadku meesha wax kala fiiriyaan. meesha inaga ragga laga yaabo yacni inuu yara isla qab iyo yara weyne iyo anigoo hebel ah anigoo Cabdixafiid ah waa ka xishoonaya hataa hadaysan xumaan ka ahayn. yani Cabdixafiid maraba boosaaso geed ku yaala ilaa hoostiisa baaragtay yaanyo la fariista. marka waxaa weeye nin abwaana maalin waxaan ka maqlay oon dhageystay oon si fiican u dhageystaa wuxuu yiri gabadhu waa ceel meel cidla ah ku yaal. waxaa weeye waa garan kartaa adoo meel saxara socdo oo oon u dhimanaya
haddii aad ceel biyo ka buuxaan u timaado gabadha waa tabtaasu yiri hooyada Soomaaliyeedna waa tabtaas waa ceel meel codla ku yaala weligeedna saasay ahayd 20 sano oo la soo dhaafayna waxa aan ogaanay in ceel kaleba uusan jirin oo Soomaaliya ay ka cabto hooyadaas mooyaane ilaahay barakeeyo